ka arrimiya waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un oo la aaminsan yahay inuu argagax geliyo dalkiisa iyo qaybo kale oo caalamka ka mid ahba ayaynu kaga hadli doonaa barnaamijkeenan xogta dahsoon. ilaa hadda ma cadda sanadkii uu dhashay Kim Jong Un waxaase la aaminsan yahay inuu ku dhashay magaalada Pyongyang intii u dhaxaysay sanadihii 1983 ilaa 1984 waana inankii saddexaad ee aabihii isla markaana ahaa koodii ugu yaraa. yaraantiisii waxa uu wax ku soo bartay dalka Switzerland isagoo oo sita magac been abuur ah oo la oran jiray Park John. waxbarashada uu ku jiray tan iyo sanadkii 1989 markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu noqday taliyaha u sarreeya militariga waddankaasi. aabihiina waxa uu isaga ka doorbiday labadiisii wiil ee kale ee ka waaweynaa kuwaasoo mid ka mid ah lagu xaman jiray inuu ahaa shabeelnaagood waxaana aabahoodu ka helay kuleylka iyo dhiiranaanta ku jirta inankiisa ugu yar. 15 bishii January sanadkii 2009 ayay ahayd markii ay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi baahisay in loo magacaabay Kim Jong Un inuu dhaxlo xukunka dalkaasi iyadoo aabihii Kim Jong Il uu dhintay sanadkii 2011 dhammaadkiisii waxaana uu xukunka si rasmi ah ula wareegay bilowgii sanadkii xigay ee 2012 isagoo markiiba bilaabay inuu muujiyo adadaygiisa una xirtay qaabka dhalinyarada. xilligaana waxaa dacaayado lagu taageerayo madaxweynaha cusub bilaabay warbaahinta ku jirta gacanta dawladda. tan iyo intii xukunka qabtay waxaa hoos u sii dhacaysay dhaqaalaha dalka waxaana dadka waddankaas ku adkaatay wax kasta oo noloshooda saameynta ku lahaa xitaa hadday tahay hawadii oxygen-ta ee ay neefsanayeen. wax kastaana waxay noqdeen wax uu dusha kala socdo iyadoo warbaahinta waddankuna wakhtiga baahintooda ku dhammaystiraan ammaan iyo bogaadimo loo jeedinayo Kim Jong Un iyo aabihii iyo weliba awowgii oo ahaa ninkii aasaasay dowladda Kuuriyada Waqooyi halka sidoo kalena ay waqti badan ku dhaleeceeyaan wadamada reer galbeedka Israel, dowladda Japan iyo jaarkooda Kuuriyada Koonfureed. Kim Jong Un oo ku caanbaxay diktaatoornimo aanay cidna kala mid ahayn aadamaha maanta nool ayaa waxa uu gudaha waddanka ka sameeyey dilal siyaasadeed oo istaba joogay. daldalaadaha uu sameynayay oo ahayd mid aanay ka marnayn raggiisa, wasiiradiisa iyo xitaa qoyskiisa isagoo eedaynta khiyaamo qaran u isticmaala cidda uu wax ka tirsanayo si uu uga takhaluso. waxaa ka mid ahaa dadkii uu dilay odaygii qabay eedadii San Tonje oo uu dilay bishii Diseembar sanadkii 2013 isagoo la dilay 5 qof oo kale oo dhammaantood lagu eedeeyay inay khiyaamo maleegayeen waxaana iyaga oo dharka laga saaray loo xareeyay 100 ay oo dadcuna oo gaajoonaya. arrinta murugada lahaydna waxay ahayd in Kim Jong Un laftiisa uu daawado howlaha dilka iyo daldalaadaha ah ee lagu filinayo madaxda sare isagoo falalka noocaas ku cabsi geliya cid kasta oo isku dayaysa inay hogaamintiisa ka hor yimaadaan. raggii kale ee uu dilay waxaa ka mid ahaa wasiirkiisii gaashaandhigga General Kim Ul-joy markii uu u jeediyey eedeymo ay ka mid ahaayeen khiyaamo qaran, ka horimaad hogaamiye iyo inuu lulooday xilli la daawanayay dhowlatus ciidan. waxaana xukunkiisa lagu fuliyey iyadoo lagu toogtay qoryaha lidka diyaaradaha. generaalka oo ahaa ninkii saddexaad ee militariga waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dhisay ciidanka waddankaas isla markaana ku hanjabi jiray inay quwaddooda nukliyeerka u isticmaali doonaan iska horimaad kasta oo yimaada. raggii kale ee uu qaarajiyey waxaa ka mid ahaa wasiirkiisii amniga guud Hon San-hon oo lagu toogtay hubka gaaska holaca tuura waxaana uu ku eedeeyey inuu cadow u yahay shacabka wasaaraddiisana ka dhigtay mid uu dana gaara u adeegsado isla markaana uu qariyey musuqmaasuq ka jiray wasaaradda xiriir dhowna uu la lahaan jiray odaygii uu hore u qaarajiyey ee madaxweynaha eedadii qabay. waxaa kale oo la dildalaa maalin walba madax badan oo lala xidhiidhanayo inay odaygaa isku dhowaayeen dadkaasoo tiradoodu gaaraysa ilaa 200 oo qof ilaa imankana la dilay 70 ka mid oo isugu jira wasiiro, saraakiil ciidan iyo xubno qoyska talada haya.